ayaa waxay muujinaysaa hamuun ay u qabto ciidan nabad ilaalin ah oo ay u dirto bariga dhexe iyadoo muddada shaqada ee ciidanka UNIFIL ee qaramada midoobay ee Lubnaan ku sugan ay ku eg tahay 31 bisha Diseembar ee sanadkan. waxaana sii kordhaya dareenka ku aadan nooca nidaamka amni ee bedeli doona howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee koonfurta Lubnaan. halkii dib loo cusboonaysiin lahaa qandaraaska shaqo ee ciidankan ama la abuuri lahaa howlgal kale oo qaramada midoobay hoostaga dhowr dal oo Yurub ah ayaa soo jeediyay in la geeyo halkaasi ciidan uu hogaaminayo midowga Yurub. arrintaasi ayaana dhalisay dood ku saabsan saameynta siyaasadeed, sharci iyo militari ee amniga xadka u dhexeeya Lubnaan iyo Israa'iil. soo jeedintan ayaana timid xilli koonfurta Lubnaan ay ka socdaan isbeddello waaweyn oo dhinaca amniga ah kadib heshiiskii xabad joojinta wadahadallada socda ee u dhexeeya Beirut iyo Tel Aviv si joogitaanka ciidamada Israa'iil ee qaybo ka mid ah koonfurta iyo cadaadiska caalamiga ah ee soo taraya lagu doonayo in ciidamada qalabka sida ee Lubnaan ay qaataan mas'uuliyad weyn oo ku saabsan amniga xuduudaha waddanka. sidaa ayay ku timid haddaba soo jeedinta Yurub. aragtidan ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Johann Wadephul uu soo jeediyay in la sameeyo ciidan Yurubyaan ah oo ka shaqeeya waajibaadka uu bixiyo midowga Yurub si looga hortago firaaq amni oo dhashay kadib bixitaanka ciidanka UNIFIL ee qaramada midoobay. isagoo la hadlayay shabakada warbaahinta Jarmalka ee RND waxa uu sheegay in dalalka xubnaha ka midowga Yurub ay tahay inay sahmiyaan siyaabaha lagu ilaalin karo xasiloonida marka howlgalka qaramada midoobay uu dhamaado. sida uu sheegay Wadephul, ciidankani waxa uu gacan ka geysan karaa fududeynta bixitaanka ciidamada Israa'iil isla markaana waxa uu ka hortagi karaa in Xisbullah ay dib u dhisto joogitaankeeda awoodda militari ee koonfurta waddanka Lubnaan. isagoo intaasi sii raaciyay in Jarmalka uu la shaqeynayo Faransiiska si loo dejiyo siyaasadda Yurubyaan ah oo midaysan oo lagu taageerayo xasiloonida Lubnaan sida hadalka loo dhigay laguna dhiirigelinayo nabad waarta oo gobolka ka hirgasha. dalka Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa sidoo kale taageeray soo jeedintan iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ay ka wada hadleen saameynta howlgal Yurub ah oo ay ka qayb qaataan dalal badan oo marka UNIFIL ee howlgalkooda uu soo dhamaado. horaantii sanadkan madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun ayaa ugu baaqay Jarmalka oo hadda hogaaminaya cutubka badda ee ciidamada qaramada midoobay hoostaga ee koonfurta Lubnaan ku sugan ee magacooda loo yaqaano UNIFIL si uu u sii wado doorkiisa firfircoon marka howlgalka qaramada midoobay uu soo gabagaboobo dabayaaqada bisha Diseembar ee sanadkan. haddaba maxaa loo dooran waayay howlgal kale oo qaramada midoobay hoostaga? taageerayaasha qorshahan taageeraya ayaa ku doodayay in soo jeedinta Yurub ay salka ku hayso go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay lagu soo afjarayay waajibaadka UNIFIL. waxaana ay aaminsan in howlgal uu hogaaminayo midowga Yurub uu ka fududaan doono in la bilaabo abaabulka marka loo eego wadaxaajoodka lagu dhisayo howlgal cusub oo nabad ilaalin ah oo qaramada midoobay hoostaga isla markaana uu xaqiijinayo sii socoshada taageerada caalamiga ah inta lagu jiro marxaladda kala guurka ah. horay bishii August ee sanadkii 2025 golaha ammaanka ayaa ansixiyay qarar lagu xaqiijinayo in ciidamada UNIFIL ay si rasmi ah ku soo afjari doonaan howshooda 31 bisha Diseembar sanadkan 2026 bixitaan tartiib ah oo ay sameeyaan. go'aankan ayaana horseeday dood ku saabsan habab kale oo amni si looga hortago xasilooni darro ka dhalata koonfurta waddanka Lubnaan. UNIFIL ayaa ku shaqeysa waajibaad ay siisay qaramada midoobay waxaana mas'uuliyadooda ugu weyn ah la socodka xabad joojinta iyo taageerada hirgelinta qararka tirsigiisu yahay 1701 loomana qaabeyn inay fuliyaan howlgallo dagaal la xiriira. ciidanka Yurub ayaase la soo jeediyay ayaa ku shaqeyn doona hoosmaanshahooda midowga Yurub waxaana inta badan ku koobnaan doona ciidamo Yurubyaan ah. warbixintuna waxay sheegaysaa in qaadi karo mas'uuliyado ballaaran oo ay ka mid yihiin tababarka iyo taageerada ciidamada qalabka sida ee Lubnaan iyo ciidamada ammaanka gudaha, wadaagga xogaha sirdoonka, xoojinta la socodka xuduudaha, hagaajinta amniga xeebaha iyo ilaalinta kaabayaasha muhiimka ah. sidaas darteedna doorkiisa ciidankani waxa uu ka gudbi doonaa kormeer oo kaliya isagoo diiradda saari doona xoojinta hay'adaha amniga ee waddanka Lubnaan. inkastoo ay jiraan dadaal siyaasadeed haddana waxaa weli jira caqabado dhowr ah oo ku horgudban qorshahan. howl kasta oo amni oo Yurubyaan ah waxay u baahnaan doontaa ogolaansho laga helo ama loo dhan yahay oo ka yimaada 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub waxaana weli la isku raacin waajibaadkiisa, qaab dhismeedkiisa
amaba tirada ciidamada ee dal waliba uu kusoo diri doono qorshahan marka Yurub ay ku dhaqaaqdo. Dowladda Lubnaan ay dhaqan ahaan doorbiday in lasii hayo joogitaan amni oo caalami ah oo hoos yimaada qaramada midoobay halkii lagu bedeli lahaa ciidan kooban oo keliya oo dalalka Yurub hoostaga. mowqifka Israa'iil ayaa sidoo kale weli muhiim u ah ama caqabad hortaagan qorshaha Yurub ay doonayso inay hirgeliso. Saraakiisha Israa'iil ayaana hore u muujiyay walaac ku saabsan soo jeedino Faransiiska siinaya door hogaamineed oo military, taasi oo adkeyn karta wadahadallada ku saabsan howlgal kasta oo mustaqbalka la sameeyo isla markaana ay Yurub ku lug leedahay. waa hagaag aynu ku sii soconay arrimaha Yurub la xiriira. Israa'iil oo isku sii fidinaysa dhulka Falastiiniyiinta ayaa waxa ay kala kulantay digniin ka timid midowga Yurub oo ku saabsan inay joojiso daanta galbeed deegaameynta ay ka wado, iyadoo deegaameynta Israa'iil halkaasi ka wadana sii dardargelinaysa. midowga Yurub ayaa waxa uu muujiyay walaac ku saabsan go'aanka xukuumadda Israa'iil ee ah inay qoondeyso dhaqaale cusub oo ballaaran iyadoo looga gol leeyahay hirgelinta ballaarinta ee deegaameynta Yahuudda looga sameynayo daanta galbeed ee la haysto. waxaana midowga Yurub uu ka digay in tallaabadani ay sii xoojin doonto sharciyada deegaanada Israa'iil ee ku yaala goobo aad xasaasi u ah, islamarkaana ay wiiqi doonto rajada xalka laba dowladood oo dalal badan ay ku taamiyeen in la hirgeliyo. Talaadii lasoo dhaafay xukuumadda Netanyahu ayaa shaacisay qorshe ay ku qoondeynayso ku dhawaad $2.8 bilyan si loo ballaariyo deegaanada Israa'iil loona dhiso kumanaan guri oo cusub oo ku baahsan daanta galbeed ee la haysto. sida ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil ee gudahana, xukuumadda Israa'iil ayaa waxay saxiixday heshiis guud oo ay ku jiraan dhismaha 12,000 oo guri iyo sidoo kale mashaariic waaweyn oo kaabayaal ah oo loogu talagalay xoojinta kobaca deegaanada. telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay ee qorshahan waxa uu ku tilmaamay tallaabo aad u weyn oo loogu talagalay ballaarinta deegaanada iyo in lagu bedelo muuqaalka gobolka, taasi oo ka turjumaysa siyaasadda guud ee Israa'iil ee lagu kordhinayo joogitaankeeda dhulka ay ka haysato Falastiiniyiinta. midowga Yurub ayaa sidoo kale waxa uu diiday go'aanka Israa'iil ee lagu sheegay in deegaanka Givat-Yair oo looga dhisay dhulka Falastiiniyiinta ay leeyihiin ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Qudus la aqoonsado degmo rasmi ah oo Israa'iil ay leedahay. war-saxaafadeed uu soo saaray midowgu waxa uu ka celiyay inuusan aqoonsanayn madax-bannaanida Israa'iil ee dhulalka la qabsaday tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 1967, isagoo carabka ku adkeeyay in mowqifkiisu waafaqsan yahay qaraarada quseeya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. go'aankan ayaana ku yimid kadib amar uu bixiyey taliyaha taliska dhexe ee ciidamada difaaca Israa'iil Avi Balot, kaasi oo si rasmi ah ugu dillaacsiiyey deegaankani inuu ku gudbo heer golo deegaan oo uu noqdo magaalo. wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaana sheegay in tallaabadan loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ballaarinta deegaanada lagana hortago dhismaha dowlad Falastiini ah, sida uu hadalka u dhigay. waxaana warkaasi wariyay telefishinka kanaalka 7aad ee Israa'iil laga leeyahay. siinta deegaankaasi heer magaalona waxay ballaarinaysaa awoodiisa maamulka, waxayna kordhinaysaa maalgelinta xukuumadda uu ka helo, taasi oo u suurtagelinaysa dhismo degdeg ah, horumarinta magaalooyinka iyo soo jiidashada deganayaal cusub. tallaabadan ayaana dhalisay cambaarin uga timid mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta iyo bulshada caalamka. midowga Yurub waxa uu mar kale dhankiisa ugu baaqay Israa'iil inay joojiso ballaarinta deegaanada, sharciyeynta furiisimaha deegaanada, la wareegidda dhulka aysan xaqa u lahayn, burburinta guryaha Falastiiniyiinta, barakacinta qasabka ah iyo tallaabooyinka kale ee halka dhinac ah ee khatarta gelinaya suurtagalnimada xalka laba dowladood oo lagu gaaro wada hadal. tan iyo markii la dhisay xukuumadda Israa'iil ee hogaamiyo Benjamin Netanyahu dabayaaqadii sanadkii 2022, dhaqaaqa ballaarinta deegaanada ee daanta galbeed ee la haysto qaybna ay ka tahay bariga Qudus ee si weyn loo kordhiyey, inkastoo ay jireen diidmooyin soo noqnoqday oo caalamka ama dunida ka yimid. qaramada midoobay ayaana weli u aqoonsan dhulkani inuu leeyahay Falastiiniyiinta ama ay leeyihiin, islamarkaana Israa'iil ay sharci darro ku haysato. jimcihii guddiga Falastiin ee la dagaalanka derbiga ee deegaanada ayaa ka digay qorshayaal cusub oo Israa'iil ku doonayso inay ku dhisto ilaa 2024 unug oo deegaano cusub ah, kuwaasi oo laga dhisayo in ka badan 1,000 dunam ama 100 hektar oo dhulka Falastiiniyiinta ay leeyihiin ee daanta galbeed ee la haysta ah. waxaana guddigu sheegay in tan iyo bilowgii bisha Luulyo
golaha sare ee qorsheynta ee maamulka madaniga ah ee Israa'iil uu dib u eegay 9 qorshe oo dhismaha deegaano ah kuwaasi oo hore ugu sii gudbay habraacyada ansixinta iyo diiwaangelinta sida uu guddigu sheegana tallaabooyinkani waxay muujinayaan siyaasadda joogtada ah ee Israa'iil ee ah in dhulka ay ka abuurto xaqiiqooyin cusub oo dib loo bedeli karin iyadoo adeegsanaysa qorsheynta iyo ballaarinta deegaanada qaramada midoobay iyo inta badan dalalka dunida ayaana u arkaa deegaanaynta Israa'iil ay wado ee laga dhisayo dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto inay yihiin kuwo sharci darro ah marka loo eego sharciga caalamiga ah iyagoo ku doodaya inay jebinayaan waajibaadka sharciga dunida islamarkaana ay yareynayaan rajada mustaqbalka ee dowlad Falastiiniya lagu hirgelin karo sida ay sheegeen ururka nabadda ee Israel Peace Now qiyaastii 500 oo kun oo deegaanayaal Israa'iiliin ah ayaa ku nool daanta galbeed ee la haysto halka 250 kun oo kale ay degan yihiin deegaanada ku yaala bariga Qudus taasi oo muujinaysa baaxadda ballaarinta deegaamaynta iyo caqabadaha isa soo taraya ee horyaala dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro xal waara oo ku aadan laba dowladood oo la hirgeliyo waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socota warbixintu ku saabsan Bakistan oo qarka u saaran inay ka tallaabto doorkeedii dhexdhexaadnimo ee gobolka iyadoo fooda ay isdari karaan Iiraan haddaba maxay tahay sababta isku diri karta labadan dal oo dhexdhexaad midna u ahaa midka kalena oo colaad kala dhaxaysay Mareykanka iyo Israa'iil oo isgarabsanaya waan eegi doonaa warbixintaasi balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin ah talaabna sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka caawa Bakistan ayaa waxaa soo dhawaatay suurtagalnimada ay ku qaadan karto go'aan adag oo ka horkeeni kara Iiraan kadib weeraradii Xuutiyiinta ee Sacuudiga oo abuuray marxalad ay kaga gudbi karto doorkeeda dhexdhexaadnimo iyadoo Sacuudigana leh heshiis iskaashi difaaca oo ka dhigan tahay in dal iyaga ka mid ah haddii la weeraro Sacuudiga ama Bakistan midkood in kan kale la weeraray walwalka Bakistan ayaa sii kordhay kaasi ay ka qabto weerarada kooxda Xuutiyiinta reer Yemen ee Iiraan ay taageerto ku qaadeen Sacuudiga oo ay inay kusoo jeedaan Islaamabad inay qayb ka noqoto colaad ballaaran oo dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan taasi oo adkeyn karta doorkeeda dhexdhexaadin islamarkaana kordhin karta khatarta amni ee gobolka walaacan ayaa yimid kadib weerar gantaalo oo Xuutiyiinta toddobaadkan hore ay ku qaadeen Sacuudiga kadib markii kooxdu ay ku eedeysay boqortooyada inay dhaqaysay garoon diyaaradeed oo ay maamusho inkastoo isweydaarsiga weeraradu ay ku ekaadeen hal dhacdo haddana waxa uu jebiyey xabad joojin 4 sano soo jirtay waxaana uu sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalka u dhexeeya Sacuudiga iyo Xuutiyiinta uu dib u qarxo Bakistan oo bishii hore gacan ka geysatay dhexdhexaadinta heshiis ku meel gaar ah ama isaafgarad ah oo ku saabsanaa colaadda u dhaxaysa Washington iyo Tehran ayaa sanadkii hore ee la saxiixatay Sacuudiga heshiis iskaashi difaac oo wadajir ah kumanaan askari oo Bakistaani ah oo ay taageerayaan cutubka diyaaradaha dagaalka oo ku sugan boqortooyada ayaa waxay ku sugan yihiin boqortooyada taasi oo ka dhigaysa inay u dhow yihiin meel kasta oo xiisadu ay kasii dari karto sida ay sheegeen saraakiisha Bakistan weeraradii ugu dambeeyay waxa ay gaarsiiyeen heer cusub oo niyadjabka ay ka qabto Islaamabad Iiraan mid ka mid ah saraakiisha sare ayaana u sheegay Reuters in hoggaanka rayidka iyo militariga ee Bakistan ay u gudbiyeen Tehran fariin ah in weerarada lagu qaaday Sacuudiga ay yihiin weerar lagu qaaday Bakistan iyagoo arrintaasi ku tilmaamay qad cas oo laga tallaabi karin waxaana saraakiishu ay codsadeen in magacyadooda la shaacin sababo la xiriira in loo ogolaan inay si rasmi ah uga hadlaan arrintan warar khuseeya falanqeeyaha amniga ee Maxamed Amir Khan lagu magacaabo ayaa waxaa hadaba uu ka hadlay arrintan isagoo sheegay in Bakistan ay soo filayeen xiisadu si degdeg ah u sii xoogeysan doonto falanqeeyaashuna waxay aaminsan yihiin in Islaamabad ay si gaar ah uga walaacsan tahay maadaama ciidamada Bakistan la geeyay meel u dhow xadka Sacuudiga iyo Yemen taasi oo ka dhigaysa kuwa halis ugu jira haddii dagaalku uu sii ballaarto saraakiishu waxay sidoo kale ka walaacsan yihiin weerar cusub ay Xuutiyiinta qaadaan ay carqaladeyn karaan isku socodka maraakiibta badda cas oo ah marin ganacsi oo muhiim u ah Bakistan iyo dalal kale oo badan oo dunida ah colaadda sii ballaaratana waxay halis gelin kartaa danaha Sacuudiga waxaana suurtagal ka dhigi kartaa in Bakistan ay waajib ku noqoto inay ka jawaabto heshiiska ay la lahayd ee Riyadh ee ilaalinaya midba midka kale generaalka Bakistaaniga ah ee howlgabka ah Ghulam Mustafa ayaa waxa uu sheegay in hoggaanka dalka uu wali isku dayo inuu dheelitiro xiriirka uu la leeyahay dhammaan dhinacyada balse waxa uu ka digay in xaaladdu ay isbedeli karto haddii Xuutiyiintu weeraradooda ay ku sii fidiyaan dhulka Sacuudiga isbedeladii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale kordhiyay warwarka ka jira Islaamabad ee ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha ka dhex jira hoggaanka Iiraan saraakiisha Bakistan waxay rumaysan yihiin in khilaafaadka u dhexeeya
madaxweyne Mascuud Basashkian wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araqji gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Baaqir Qalibaaf iyo ciidanka ilaalada kacaanka ayaa arjeysiyay inay noqdaan kuwo sii muuqanaya falanqeeyaha arrimaha difaaca Maxamed Cali ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in Islaamabad ay sii aaminsan tahay in taliska militariga Iiraan uu door hogaamineed ku leeyahay go'aan qaadashada taasi oo sii kordhinaysa hubinta la'aanta ku saabsan tallaabooyinka mustaqbalka ee Tehran. Islaan ayaana sidoo kale dib u dhigay booqasho loo qorsheeyay in Islaamabad ku tagaan wafdi Iiraaniya oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Alexander Momeni. Wafdiguna waxa uu ugu dambeyn yimid 2 maalmood kadib iyadoo la filayay in wadahadallada ay ka mid noqdaan heshiiska u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa mar kale ku celisay baaqyada ku aadan in dhammaan dhinacyadu muujiyaan isxakamayn buuxda iyadoo carabka ku adkaysay in wadahadalka iyo diblomaasiyaddu ay yihiin wadada keliya ee lagu yareyn karo xiisadaha. falanqeeyaasha ayaana sheegay in doorka sii kordhiya ee Pakistan ee gobolka uu kordhiyey saameynteeda diblomaasiyadeed iyo sidoo kale u nuglaashaheeda dhibaatooyin badan oo gobolka ah. heshiiska difaaca ee la saxiixatay Sacuudiga sanadkii 2025 ayaana ka turjumaya dadaalada dalalka khaliijka ee lagu kala duwayo iskaashiyada amni. isla mar ahaantaana Pakistan waxay si weyn ugu tiirsan tahay shidaalka iyo gaaska bariga dhexe. carqalado hore oo ka dhacay agagaarka marinka Hormuz ayaa ku qasbay dowladdu inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo looga hortagayo Iiraanta shidaalka taasi oo ka dhigaysa xasiloonida gobolka mudnaan dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeedba. inkastoo Islaamabad ay weli ka go'an tahay inay dhexdhexaadiso Washington iyo Tehran, saraakiishu waxay qareen in isku dheelitirka doorkan iyo waajibaadka amni ee ka saaran ilaalinta Sacuudiga uu sii adkaanayo. mid ka mid ah saraakiisha ayaana sheegay in Pakistan ay weli ka go'an tahay ilaalinta geedi socodka dhexdhexaadnimo, balse sargaal kale ayaa qartay in haddii Sacuudigu si rasmi ah u codsado taageero militari oo ka timaada Pakistan ay garab istaagi doonaan qasabna ay tahay, taasi oo muujinaysa go'aanada adag ee Pakistan laga yaabo inay wajahdo haddii colaaddu ay sii ballaarato. waa hagaag daawadayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka maxaa cusub oo si toos ah HBN Online TV aad kaga daawanayseen. si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino, haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan aan waagan hore ugu xidhnaynina nagu soo biira. tan iyo toona dib ugu kulmi doona barnaamij midkan lacayna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.